assalaamu calaykum kusoo dhawow daawada qaybta afraad ee sheekada amiina almufti. qaybta koowaad waxay inoo joogtay markii ay isbarteen ninkii ka shaqaynaya shirkadda isgaarsiinta islamarkaana la doonaya inay soo raadiso teleefoonada iyo nambarada yaasir carafaad iyo cali salaama. qaybta afraad waxay ku bilaabanaysaa sidan. cali salaama waxauu ahaa nin dhallinyaro ah oo aad u maskax badan. nacaybka ay guud ahaan falastiiniyiinta ay u leeyihiin yahuudda waxaa isaga u dheeraa in isaga oo da'diisa ay 15 sano jir ahayd oo indhihiisa ku arkayey yahuudda oo si kibir ah u dilaysa aabbihii. hooyadii ayaa ula baxsatay dalka lubnaan, waxa aynu muddo ay ku noolaayeen xero qaxooti oo falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taalla deegaanada nabolis oo ka tirsan dalka lubnaan. waxay ahayd xero nolosheeda oo aad u liidato oo koronto iyo biyo nadiifa midna aanan lahayn. magaalada nabolis ayaa uu ku qaatay waxbarashadiisii, waxaanu inta badan kaalmaha ugu horreeya ka geli jiray waxbarashada. inkasta uu ahaa nin da'da ugu qurxoon ugana raganimo badan, laguna tirin jira nooca ragga aanay hablaha gayaankii ahaa aysan u dayma la'aan, ayaa isagu darsantay. haddana isagoo yaraantiisii ma uusan ahayn ninka arrimaha haweenka isku howla. himilada iyo hiigsigiisa ugu weyn ee uu lahaa waxay ahayd siyaasadda. markii uu dugsiga sare dhammaystay waxa uu helay deeq waxbarasho oo ay bixisay jaamacadda maraykanka ee magaalada bayruud. waxa ay waxbarashadu isku soo gaadheen rag badan oo magacyo lahaa oo falastiiniyiinta. cali salaame xilligii jaamacadda waxa uu caan ku ahaan jiray naanayse ay ardayda u bixiyeen oo ahayd hogaamiyaha siyaasiga ah. waxa uu inta badan ku soo ururi jiray ardada oo uu jeedin jiray khudbado kacaan ah. saamaynta cali salaame waxa ay sii korortay markii ay dadkii ogaadeen in yahuudda iyo aabbihii ay dileen. waxa aanu uu caan ku ahaa inuu mar walba uu yidhaahdo, waynu ilownay inaynu raadsanno xaqaynii. haddii aanan dhaqdhaqaaq samaynin waxaan ku dheganaan doonnaa dhoobada, innaga oo dullaysan oo aanan waddan lahayn. cali salaama waxa uu jaamacaddii ka qaatay shahaado injineernimo ah. markii uu waxbarashadii dhammaystayna waxay isbarteen yaasir carafaad oo isagu markaas uun aasaasay ururkii xoraynta falastiin. barashadan ayaa noqotay tallaabadii koowaad ee isbeddel sal iyo baar lahaa uu ku yimid gebi ahaanba noloshii cali salaama. waxa uu xubin sare oo muhiim ah uu ka noqday ururka xoraynta falastiiniyiinta oo uu ka qabtay xilalka taliyaha ciidanka guutada 17aad, agaasimaha sirdoonka falastiin iyo madaxa howlgallada garabkii lagu magacaabay sebteembarta madow oo ahaa koox si weyn u weerartay sirdoonka iyo qubarada ammaanka ee yahuudda. waxa uu tababaro iyo aqoon kororsi uu howlaha sirdoonka la xiriira uu ka helay qubarada sirdoonka ee dalka masar, waxaana uu yoolkiisa koowaad uu ahaa inuu bartilmaameedsado basaasiinta carbeed ee u adeega muusaad. salaama waxaa kaloo uu caan ku ahaa dhuumashada iyo muuqdoorinta, waxaana uu dacaw ka ahaa dhagarta iyo mukarka. geesinimo libaax leh ayuu lahaa. cali salaama waxa uu maskaxdiisaan mucjisada ahayd oo allo ku nimceeyey iyo aqoontiisa uga faa'iidaystay inuu si weyn uu ugu daba shaqeeyo uuna u abaalmariyo khiyaamiinta iyo basaasiinta u adeega yahuudda. muddooyin gaaban gudahood ayaana uu qoorta uu soo qabtay 10 ka mid a basaasiin lagu dhex beeray kooxaha wax iska caabinta iyo ururada reer falastiin. cali salaama marar badan ayuu ka fakaday iskuday dil ah oo muusaad ay la maaganayd. xilliga xagaaga nolosha bayruud waxa ay lahayd dhadhan gaar ah oo ka socan gebi ahaanba wakhtiga kale ee sanadka. waxa ay lahayd jawi iyo deganaan ay u soo hiloobaan dadyow badan oo ka soo kala jeeda dalalka kala duwan ee dunida. maalmaha fasaxyada toddobaadka, hodheelada, jidadka, badda xilligeeda, baararka lagu caweeyo iyo guud ahaan magaalada waxaa buux dhaafin jiray dalxiisayaal daafaha dunida ka yimaada. isdhexgal badan oo bulshooyin kala dhaqamo ah ayaa waxay saameyn ku yeesheen dhaqanka lubnaan oo aad uga duwanaa kan dhowrsoon ee carabta kale. waxaa caadi ka ahaa dhaqamo badan oo reer galbeedka ka jira, waana sababta magaalada bayruud loogu naanaysi jiray baariista bariga dhexe. hodheelada lagu caweeye iyo goobaha lagu tunto, hablo ka heesa, baararka lagu saamaleylo, barxado ragga iyo dumarka lagu ciyaaro, kubadaha teyniska iyo sidoo kale golofka, masraxyo caan ku ah qoobka ciyaarka iyo tartanada quruxda dumarka ayaa intaba ka jiray magaalada bayruud. caado ayay u ahayd cali salaama inuu wakhtigiisa gaarka ah saaxiibadii fatxi carafaad kula qaato hoteelada iyo sidoo kale golayaasha xagaaga camiran. fatxi carafaad oo ay walaalo ahaayeen hogaamiyaha falastiiniyiinta yaasir carafaad waxa uu madax ka ahaa hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta. sanadkaasi oo ahaa 1973 tartankii quruxda haweenka ee adduunka waxaa ku guulaysatay georgina risqi oo u dhalatay dalka lubnaan. cali salaama oo ahaa ragga nooca sida fudud u hanta qalbiyada haweenka ayaa georgina risqi haasaawiyey oo inta uu qalbigeedii degay dhaqso u guursaday.
inkastoo uu markaas cali salaama uu ahaa ninka ay sirdoonka yuhuudda ugu raadinta badan yihiin xogta aamina almufti loo soo dirayna ay ugu horreysa tiisa, haddana weli sirdoonka yuhuudda ma uusan haynin sawirka dhabta ah, xitaa humaag mala awaal ah oo cali salaama lagu garan og yahay. dadaallo badan ayay u galeen in ay soo raadgoobaan si ay u qaarajiyaan, kuma aysan guulaysan, gaar ahaan intii ka dambeysay weerarkii ciyaartooyda israa'iil lagu dilay magaalada muunikh ee dalka jarmalka, oo uu cali salaama uu ahaa fallaar ku mudan israa'iil. cali salaama oo markaasi dambe caan ku noqday amiirka cas oo ahaa magacay weerarkay jarmalka dartii loogu bixiyey, islamarkaana ay u bixisay haweenaydii wakhtigaasi ra-iisul wasaaraha ka eed israa'iil, wuxuu bilowgii sii gacanyaro u ahaa yaasir carafaad, waxaana uu si gaar ah ugu qaabilsanaa arrimaha ammaanka. waxaase uu markii dambe gaaray darajada taliyaha guud ee ammaanka iyo sirdoonka ururka xoreynta falastiin, xilkaas oo markii hore uu hayay ku-xigeenkii yaasir carafaad ee lagu magacaabo abu iyaad. ka hor inta aanan la dilin, cali salaama waxa uu sidoo kale madax u ahaa ciidanka loo yaqaanay ilaalada gudaha oo loogu naaneysi jiray guutooyinka 17aad. israa'iil dilka salaama oo keliya ma ayn doonaynin ee waxaa kaloo u dheeraa damaca ay leeyihiin ee ah inay helaan waraaqadaha iyo dukumiintiyada cali salaama si ay xog dheeraada uga helaan qaababka shaqo iyo xubnaha firfircoon ee hay-adda sirdoonka falastiiniyiinta ee ku leedahay qaaradda yurub iyo gudaha israa'iil. muhiim ayaa ay israa'iil u ahayd amni ahaan inay hesho dukumiintiyada la xiriira howlgallada falastiiniyiinta, gaar ahaanna kuwii hore si loo helo tabaha ay isticmaalaan, loogana barto daruus ka caawisa hay-adaha ammaanku inay ka hortegi karaan wixii dambe oo weerar ku ah israa'iil. markaana aan eegno quustii. mid ka mid a kulimadii tumashada ayaa aamino oo shaqadeedii kale hoos ku wadataa waxa ay maaruun weydiisay inuu garanayo carafaad, abu iyaad, alqamri iyo sidoo kale rag kale oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta falastiiniyiinta. maaruun xaayig waxa uu ku jawaabay inuu si fiican u wada garanayo ragga ay sheegayso. amiina oo uu wada dareen farxadeed oo ay qarsanayso ayaa bilowday inay sidii hore si ka labanlaaban sharafteedii ay ugu dhiibto xaayig. kulamo joogto ah, farxad iyo soo dhoweyn ayaa waxa uu mar kasta uu kala kulmi jiray amiina. intaasi oo keliya ma ahayn oo waxa ay bilowday inay dhaqaale ay ku kabto, iyadoo isaga dhigaysa inay tahay haweeney ganacsato badan oo dhaqaalo badan leh, islamarkaana jecel in ay gebi ahaanba ay kabto ninkan ay jeceshahay oo dabcan ka jeeb yar. waxaa si gaara u farxad geliyey soo garashada uu xaayig sheegay inuu garanayo salaama, gaar ahaanna waxa uu sheegay inuu ogyahay hodheel uu aad ugu soo noqnoqdo. marar badan ayaa amiina iyo sidoo kale xaayig waxay isku raaceen hoteel ku yaalla badda xeeligeed oo lagu magacaabo coral beach. xaayig ayaa u sheegay in baarkan uu aad u imaan jiray cali salaama, ujeeddada isu soo raaceenna waxay ahayd inuu wejigiisa cali salaamo uu tuso. nasiib darro dhowr jeer oo arrintaana isu soo raaceenba waa ay ku fashilmeen oo cali salaama kama aysan helin hoteelka, waxaana ay taasi ay bilowgii quus ay ku keentay oo ay gaadhay inay gebi ahaanba ay ku fikirto inay garawsato in qorshaheedii uu fashilmay. sidaasi awgeed ayay dib ugu laabatay talaabiib si ay u qirato faramarnaanta ay ka joogto hawshii loo diray. laakiin fikirkaasi ma aysan dhaqan gelin oo mar walba waxa ay filan jirtay rajo ay qabta inay mar kale ay aragto cali salaama. amiina waxa ay mar labaad ibadashay qorshihii iyo jidkii u jeexnaa ee ahaa inay u marto howlgalkeeda bayruud. gurigii hore waa ay ka guurtay, waxaanay u wareegtay guri kiro ah oo cusub. waxa uu ku yaallaa mid ka mid a xaafadaha muwaadiniinta caadiga ay degan yihiin. bilowgii wejigan cusub ee ay u degtay qorshaheedii waxa uu u muuqday saadaal hore oo u qaadatay oo ah in hadda wixii ka dambeeya ay gaari doonto guulo waaweyn. waxay isbarteen gabadh falastiiniyad ah oo kalkaaliso caafimaad ahayd. waxay ahayd shamsiya oo ka shaqayn jirtay cisbitaalka saamid oo ku yaala xerada qaxootiga ee sabra. xeradan oo ku taala magaalada bayruud waxaa deganaa falastiiniyiinta ka soo barakacay dhulkii yuhuudda ay ka wareegsatay. amiina waxa ay dareentay in gabadhan ay ka caawin karto wax badan oo howlaheeda basaasnimo la xidhiira. sidaasi awgeed waxay xidhiirkooda ay ka dhigtay mid adag oo ilaa heer saaxiibtinimo dhow ay ula muuqatay kalkaalisada caafimaad ee reer falastiin. shamsiya oo aanu fahansanayn in gabadha ay baratay ay tahay basaasad ayaa isbartay amiina iyo agaasimihii cisbitaalka ka shaqaynayey oo isaguna dhinaciisii si furan u soo dhoweeyey, uguna warramay xog badan oo ku aadan cisbitaalka. waxa uu u tilmaamay in cisbitaalkan tabaruc ahaan ay uga shaqeeyaan dhaqaatiir badan oo ka yimid daafaha dunida. amiina waxa ay agaasimaha ay tustay shahaadooyinkeedii caafimaad ee been abuurka ahaa, waxaanay u sheegtay in qudheeda ay tahay dhaqtarad islamarkaana ay diyaar u tahay inay iskaa wax u qabso ay kula shaqayso cisbitaalka. agaasimaha waxa uu ka dalbaday in ay maalmo ay ka warsugto si uu talo ugula noqdo mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ee arrimahan qaabilsan.
dhaqaatiirta tabaruca ee uu agaasimuhu sheegayo waxa ay maamul ahaan hoos tagaan hay-ado iyo ururo falastiiniyiin oo kala duwan. waxaa ka mid ah hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta. waxaa dhaqaatiirta isna inta badan la kulma oo soo dhoweeya hogaamiyaha falastiiniyiinta yaasir carafaad, oo xitaa mararka qaarkood u soo raaca xeryaha qaxootiga, cisbitaalada iyo xarumaha agoonta lagu daryeelo, ama ugu yimaada iyada oo howlahoodii ay ku guda jiraan, sida uu niyadda ugu dhiso dhaqaatiirta uguna muujiyo inuu ku faraxsan yahay dadkan dalalkoodii ugu yimid inay caawiyaan dadkiisa dhiban. amiina waxay heshay fursad dahabi ah oo ay ku dhexgeli karto mas-uuliyiinta falastiin, si ballaaran ay ugu dhex milmi karto hay-adahooda maamul. waxay aragtay iminka in howlaheedii sirdoon ay u gudageli karto si fiican oo intii ay filaysay aada uga ballaaran, sida aad ahna ay fursad ee u heshay. goor galabnimo ah oo ay ku beegneed 22 bishii 7 sanadkii 1973 ayaa si kadisa telefoon ugu soo dhacay gurigii ay aamino degtay. markii ay telefoonkii qaaday codka ka soo baxay waxa uu ahaa maaruun xaayig. horena waa uu ula soo hadli jiray, laakiin markan dhowrkii eray ee xaayig uu ku yidhi may noqon kuwo ka farxiyey. 6 qof oo ka mid ah sirdoonka muusaad ayaa lagu xiray magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. markii intaas uu ku yidhi ayaa inta ay dhaqso samiicadda telefoonkooda u saartay, waxa ay daartay teleefonka qolka u yaalay. 6 qof oo mid ka mid a gabar ay tahay kiiska loo haystaa waa in ay rasaas ay ku dileen nin u dhashay dalka Morocco oo mudalab ka ahaa maqaaxi ku taala degmada dalxiiska loo tago ee ku taala dalka Norway. sidaas ayuu noqday warka aamino loo sheegay, waxaana uu warka intaasuu ku daray in 6 qof ee booliiska ay xabsiga u taxaabeen ay ka tirsanaayeen sirdoonka yahuudda ee muusaad. sababta ninka ay u dileenna ay tahay muusaad waxay u malaynaysa ninkan inuu yahay cali salaama. warka ay telefishinka ka daawatay ayaa waxa uu u sheegay in kooxda lagu qabtay dalka Norway ay ka mid ahaayeen unug lagu magacaabo Kai Idon oo micnihiisu uu noqonayo waranka, waxaana uu ka tirsan yahay wakaaladda sirdoonka ee muusaad. basaasiinta la xiray waxa ay qirteen inay ka yimaadeen Israa'iil si ay dabagal ugu sameeyaan una qaarijiyaan cali salaama. amiina markii ay warkan dhageysatay argagax iyo baqdin ayaa ay ku abuurtay, waxaana uu madow badani ka galay waxa ay ku dambayn doonto. waxay isweydiisay sababta sirdoonka muusaad uu u doonayo inay dilaan ninkan oo ah cali salaama, iyada oo ay u soo direen fariin kale oo ka duwan oo ahayd inay barato xogna ay ka hesho. waa run qof kasta oo caadi ah waxa uu isweydiin lahaa su-aashan oo kale, waxaana uu ka shaki lahaa daacadnimada muusaad ee arrinta salaame la xidhiirta. laakiin waa cidda ay ka maqan tahay in arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka ay maraan jid aada uga duwan ka caadiga ah ee markaba maskaxda ku soo dhaca, islamarkaana ay leeyihiin halbeegyo u gaar ah oo lagu qiyaaso. shaqada sirdoonka iyo siyaasadda ayaa ah in fursadda la helo aan la dayicin, islamarkaana aan 100% la isku haleynin xogta la hayo. haddii aamino loo diray in ay soo barato cali salaama xogna ay ka soo hesho, oo la sheegay in hadda cali salaama uu yahay ninka mudalabka ee maqaaxida ku taalla Oslo lagu dilay, maxaa diidaya in aan la isku haleyn karinin warka sheegaya in Beirut ay joogto? waa in la qaarajiyo kan joogo Oslo si halkii dambiiluhu uu ka baxsan lahaa nafberi ah ay u dhimato. ugu dambeyntii aamina waxa ay qaadatay go-aankeedii ah in waajibkii loo soo diray ay sidiisii u filiso, oo xitaa dilka salaame ee Norway aanay u joogsan ee salaamaha la dilay qodhiisa ay ka raadisay dalka Lubnaan sidii awal qorshaha uu ahaa. isla subaxii ay galabtaan ay maqashay waxa ay la ballantay xaayig oo ay u sheegtay inay doonayso inay mar labaad ay raadisay cali salaama. waxay isu raaceen hoteelkii Coral Beach. hoteelku waxa uu ahaa dhismo weyn oo 3 sarood ka kooban, 96 qol oo uu mid kasta uu gaar u leeyahay xamaamkiisa ama suuligiisa iyo adeegiisa aasaasiga ah. barxaddiisa qayb ka mid ah waxaa ku taala barkadda dabaasha oo si aad casri u ah loo dhisay. amiina markan waa ay ka nasiib badan tahay sideedii hore. markii hoteelka Coral Beach ay galeen oo ay ku fariisteen kuraas taale barxadda dhinaceeda oo ah xeebta mid ku sii jeeda, xaayig oo dareen naxdina ay ka muuqato, indhihiisana laga aqrinayo ayaa farta ugu fiiqay nin ka xigay dhinaca barxadda, waxaana uu cod hoose uu ku yidhi eeg waa kaas cali salaama. cali salaama waxa uu caado u ahayd inuu yimaado hoteelkan, sababtuna waxay ahayd hoteelkan ayaa waxa uu ahaa mid aad loo ilaaliyo amnigiisa, islamarkaana waxa uu leeyahay fadhi oo qofka uu si fudud isaga arki karo haddiiba uu cadow isku dayo inuu si qarsoodi ah uu ku qaarajiyo. marka uu hodheelka uu joogana dadka dareenka amnigooda shaqaynaya waxay markaba arki karaan 3 baabuur oo kuwa militariga ah, taas oo ah calaamad ay ku garan karaan in qof muhiim ah uu hoteelka uu joogo. waxay ahayd ilaalada gaarka ah ee ninka Amiina al-Mufti ay raadinayso. askarta bannaanka taagan ka sokow waxaa gudaha kula jiray oo lagu arki karayay askar dharcad ah, hubkoodana uu qarsoon yahay oo taagan kadinka hoteelka.
waxaa kaloo askarta ay joogeen goobaha gaadiidka la dhigo, beerta hoteelka ee cali salaama ay ka arki karaan iyo guud ahaanba qaybaha hoteelka. mid ka mid ah qolalka wajahada hore ee hoteelka soo xiga, gaar ahaana qolka barkada dabaasha soo eegaya, ayuu cali salaama hoteelkan uu ka degi jiray maalmaha uu doonayo inuu ku nagaado. cali salaama markan ay amiina ay arkaysay kuma dabaalanaynin barkadda, waxaase ka muuqatay in uu horey u galay, gaar ahaana halka uu fadhiyo ayaa laga garan karayay in dhinac barkadda uu ka galay ay ahayd qaybta loogu talagalay madaxda iyo dadka muhiimka ah. waxaa ku deednaa qolol yaryar oo muraayad ka samaysnaa. keligii ayaa qolka uu ku jiray, laakiin sida ay sheegeen dadka yaqaana, mar walba waxaa diyaar u ahaan jirtay bastooladiisii nooca darandooriga u dhacdo oo buuxda, xaalad feejignaan ahna waa uu ku jiray. salaama da-diisu waxay ahayd 33 sano jir. waxa uu ahaa nin jirkiisa uu dhisan yahay, jooguna uu dhammaystiran yahay oo qurux u dhashay. qaab dhismeedkiisa duleed ee jirkiisa laga dareemayo inuu yahay ciyaartooy. haddii aynu doonana in cali salaama uu si kooban aan u tilmaamo qaab dhismeedkiisa jirkiisa iyo quruxdiisa, waxaa inagaga filan inuu ahaa nin u qalma xaaskiisa cusub ee Georgina Rizqi. waxay ahayd boqoradda quruxda ee adduunka. Georgina oo markaas da-deedu ay ahayd 21 sano jir, waxaa dhalay 2 waalid oo masiixiyiin ah. dhalasho ahaan aabbaheed waxa uu ahaa Lubnaani, hooyadeedna waxay u dhalatay dalka bariga Yurub ku yaala ee Hungary. amiina ma ay rajeynaynin in sidaa fudud ay u arki doonto ninka ay dowlado badan oo sirdoonkoodu ay la-yihiin muuqiisa si ay tallaabo uga qaadaan. iyada iyo xaayig waxa ay muddo ay fadhiyeen miis hoos yaalay mid ka mid ah dalaayadaha hoteelka. cunto ayaa ay dalbadeen, laakiin sheekadii iyo kaftankii hore ee dhex miri jiray waxa ugu dambeysay markii isha la saaray cali. si aan libiqsi lahayn ayuu dhaayaheedu ay uga maqnaayeen ninkaasi yaabka badan ee loo soo diray iyo dhaqdhaqaaqiisa. cali salaama kama uusan warqabin in maanta cadow uu soo dhuuntay hoteelka. si caadi ah ayuuna dib ugu noqday dabaashiisii. halka uu barkadda ka galayna kama aysan fogeyn halkii ay fadhiyeen amiina iyo sidoo kale xaayig. bannaanka qolka gaarka ee muraayadii ku xirneyd ee cali salaama uu ka galay barkadda, waxaa dhinacyada oo bannaanka oo dhan ka taagnaa 2 nin oo murqo waaweyn. waxay ahaayeen ilaaladiisa gaarka ah. haddii markii hore araggiisii ay raadinaysay, iminka amiina qorshaheedii cusub waa inay ka shaqayso sidii ay isu baran lahaayeen salaama. waxaana ay nafteeda ku qabtay kalsooni ah inay gacanta ay ku dhigi doonto. maalintaasi waxaa u muhiimsan ee ay qabatay waxa uu ahaa inay si fiican ay indhaha uga buuxsatay muuqiisa si ay dadka uga dhex galato oo aanu mar dambe ugu qaldamin. waxay si waafi ah uga bogatay wejiga iyo muuqaalka guud ee cali salaama. maalintaa wixii ka dambeeyey waxa ay bilowday inay ka soo dhuumato xaayig, inay si joogto ay u timaado hoteelkan iyadoo hamiga ku haysa in ay mar un heli doonto fursaddii ay ku baran lahayd cali salaama. xogta kale ee muhiimka ahayd ee ay heshay waxay ahayd inay ogaatay in cali salaama hoteelkan laftiisa uga karaysan yahay qol joogto ah oo uu xirto marka uu doonayo inaanu seexan oo uu ka maqan yahay. sida ay amiino qudheeda u fahantay waxay ahayd arrin ammaan oo cali salaama uga gol lahaa inuu ku raadgato. marar kala duwan uu cali salaama hoteelkan uu yimi, waxa uu isha ku dhiftay qalanjadan markii uu yimaado hoteelkaba keligeed fadhida. inkastoo amiine ay dareentay in cali salaama uu marar badan soo eegay, haddana waxa ay weyday fursaddii dahabiga ahayd ee ku baran lahayd. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ay la kulantay arrin aad uga farxisay. iyada oo keligeed hoos fadhida kursi raaxo oo u yaala dallaayo taalla badda xeeligeeda oo gudaha hoteelka ah, ayuu cali salaama si kedisa u soo galay hoteelka. toos ayuuna u soo abbaaray kedinka hoteelka. amiina waxa ay u haysatay in cali salaama uu ku socdo qolka uu degan yahay, laakiin markii uu la sinnaa halka ay fadhido ayuu si kedisa miiskii uu fadhiday uu ugu laabtay. inta uu si anshax uu ka muuqdo u dul istaagay ayuu dhowr su-aalood weydiiyey. ayaa meel oonan ka fogeyn waxa uu ka soo qaatay kursi yaallay, waana uu soo agdhigtay. waxaana uu markiiba ku bilaabay bariido iyo hadallo u ekaa isbarasho. maalintaas cali salaama wuxuu aamino la fadhiyay muddo ku dhow saacad iyo barhkeed oo uu waraysi guud ahaan iyo isbarasho ugu fadhiistay. iyada oo maalintan xiisaha badan kaga hadlaysay waraaqadii xasuus qorkeeda oo mar dambe la helay iyada oo qabyo qoraal ah, ayaa waxay tidhi: maalintan oo ahayd bishii 9 1973 jawiga aad ayuu u kululaa. waxa aan xiisaynayay in aan dabaasho, anigoo ku raaxaysanaya neecawda qabow ee dhacaysay. koob biyo aad u qabow ah oo aan jirkayga ku qoynayana kabanaya ayaa si kadis aan u arkay nin horteyda fadhiya. waa cali salaama oo i bariidiyey, kursi horteeda yaallana soo dhigtay agtayda. naxdin ayaan la dhididay, xubnahaygiina maamuli kari waayey. wuxuu isugu kay sheegay inuu yahay ganacsado falastiini ah. si raaxo leh ayuu u fadhiistay markii aan u sheegay in aniguna aan ahay dhakhtarad u dhalatay dalka Urdun.
oo halkaana ay u timid inay tabaruc ay ugu shaqayso cisbitaalada lacag la-aanta ku daryeela dadka reer falastiin. amiina waxa ay sheegtay in laga soo bilaabo maalinta ay cali salaame ee la kulantay ilaa maalintii ay xasuus qorkeeda ay samaysay aanay weli aysan ilaabin kurbashadii iyo gariirkii wadnaheedii ka baxay cabsi awgeed. iyada oo arrimahaasi kasii hadlaysa waxay tidhi, waxaan xasuustaa sheekadiisii wacneed ee dareenkayga oo dhan xaggiisii usii jiidatay. markaana aan eegno gudagalkii shaqada. amiina waxa ay si aad ay isu sii barteen cali salaama, taasoo u fududaysay inay u furmaan albaabo badan oo ka xirnaa oo hadda ka hor aanay suurtagal ahayn inay garaacdo. waxay noqotay qof ay ku kalsoon yihiin mas-uuliyiin badan oo falastiiniyiin ah. xidhiirkeedii barashada waxa uu gaaray yaasir carafaad. waxaa galay rajo iyo reynreyn cusub. waxaa ku soo noqotay noloshii, waxaanay nafteeda ay ka dareentay kalsooni badan. amiina oo ka faa'iidaysanaysa barashada cali salaama waxay aad u dhex gashay kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin, gaar ahaanna mas-uuliyiintooda ay tustay xamaasad badan iyo dareen been abuur ah oo ay ku tusayso sida ay ula dhacsan tahay habka ay wax u wadaan iyo sidoo kale halganka gobonnimo ee ay ku jiraan. waxa ay booqatay xero kasta oo ay degan yihiin falastiiniyiinta qaxootiga ku jooga lubnaan, iyada oo la socota kooxaha dhaqaatiirta mutadawiciinta ah ayaa ay meel kastaa ay gashay. sumcad ayaana ay samaysatay, dad badan ayaana ay ka baratay hay-adaha kala duwan iyo mas-uuliyiinta falastiiniyiinta. amiina indhaheedu waxay u ahaayeen kaamarado ay ku sawirto wax kasta oo dhacaya, sawirka muuqaalada xasaasiga ahna ay ku qaadato si ay ugu kaydsato maskaxda. dhagaheedu waxa ay ahaayeen cajalad casri ah oo ay ku duubto sirta iyo war kasta oo xasaasi ah oo ay ka maqasho madaxda reer falastiin. waxa ay xafida meelaha ay ku yaalaan boqolaal xarumood oo xasaasi ah iyo magacyadooda. waxaa sidoo kale xasuusteeda ay ku kaydisay noocyada hubka iyo qeybaha tababarka ee falastiiniyiinta. waxaas oo dhan inay heshana waxaa u fududeeyay kalsoonida ay ka haysteen mas-uuliyiinta reer falastiin oo sababtay in ay si maalinla ah u hesho xogo aada xasaasi u ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada falastiiniyiinta iyo hadba howlaha ay qorsheynayaan, iyada oo u diraysa sirdoonkii israa'iil oo si joogto ah uga dalbanayay inay soo dirto warbixinada waafiga ah. dukumentiya rasmi ah, khariidadaha iyo sidoo kaleento sawiro oo aan warlalis qaadi karaynin, iyada oo sidooda ah ayay ku ridi jirtay sanduuq qashin oo gurigeeda bannaankiisa yaala. sanduuqaas ayaa waxay afgarasho ahaan halkaasi u ahayd saraakiil muusaad ka tirsan oo gebi ahaanba halkaasi ka baxsan jiray, waxaanay ku magacaabi jireen boostada geerida. waxaa kaloo mararka qaarkood ay dhigi jirtay mid ka mid a suuliyada hoteelka coral beach oo marka wakhtigeedii la gaaray oo marka wakhtiga la dhigay iyada iyo muusaad ay isla ogaayeen inta suuliga gasho oo ay dhigto ayay iska bixi jirtay, islamarkaana ay soo weydaaran jireen basaasiin kale oo muusaad oo bayruud joogay. shaqadooduna ay tahay in wixii suuligan ama sanduuqa qashinka lagu rido ay qaadaan si ay ugu gudbiyaan xarunta muusaad ee talaabiib. amiina oo waraaqadaheedii xasuus qorka kaga waramaya mid ka mid a dhacdooyinkii naxdinta badnaa ee soo maray dukumiintiyada ay qaabkan u gudbin jirtay ayaa waxay qortay, waxaanan ilaabi karaynin maalmaha maalin ka mid ah oo aan la ballansanaa cali salaama. aniga iyo gabarh aanu isku shaqo ahayn oo sidatay jinsiyadda dalka qubrus ayaa saacaddii ballantu ay ahayd ka hornimi hoteelka coral beach oo aan ku ballansanayn salaama. waxaan shadada gacanta ku sitay 24 warqadood oo ah waraaqaha aanu qadku ka muuqan ee ay basaasiinta warbixinadooda ku qoraan. waxay ahaayeen qoraallo, warbixinno iyo sawiro sir ah oo xasaasi ahaa. waxa uu ahaa qorshahayga inaan helo wakhtiga aan waraaqadahan ku dhigi karo suuliga ka hor inta aanu imaan. cali salaame ayaa igu soo kediyey oo wakhti yar ayuu ka soo hormariyey ballantii. sidaasi awgeed waxa uu ii yimid aniga oo weli waraaqadihii aanan dhigin suuliga. inuu arko mid keliya oo ka mid a waraaqadaha aan sitay ayaa sababi karaysay inuu si dhaqso ah bastoolada laabteeda uga faarujiyo. maalintan maskaxdeeda waxaa ku jirtay xaalad waali ah, dareenkaygii oo dhanna waan xakamayn kari waayey. saaxiibtay oo i hareer fadhidayna waxay u dhiman gaartay cabsi. hadalka amiina waa calaamad ina tusaysa siday amiina ugu suurto gashay inay si xorriyad ah ay basaasnimadeedii uga dhex wadato hogaamiyaasha falastiiniyiinta iyo ragga wax iska caabinta ee aaminay. waxay ku guulaysatay inay israa'iil u gudbiso xogo badan oo aada muhiim u ahaa. amiina waxa ay yaasir carafaad xafiiskiisa ay booqatay 3 jeer si ay indhaheeda ugu soo aragto wax badan oo ay u baahneed. yaasir carafaad oo ah nin aada u soo dhoweyn badan islamarkaana aada u jecel dhallinyarada ayaa aada u soo dhoweeyay amiina oo u haystay aqoon-yahanad carbeed oo dalkeeda urdun uga timid inay wax u qabato dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta ee dhiban. iyada oo daacad iska dhigaysa ayay u soo jeedisay talooyin badan
oo si qadarin iyo dheganuglaani ay ka muuqato u dhegaystay. amiine waxay ku guulaysatay in albaabada xafiiska yaasir carafaad mar walba ay u furnaadaan, goorta ay doontaana ay la kulmi karto. muddo ayaa amiine waxay ku jirtay xaaladan oo ay aad uga heshay, islamarkaana ay ka heleen mas-uuliyiintii yuhuudda ahaa ee soo diray oo si joogto ah ay ugu gudbiso warbixinno anfacaya, iyadoo u sheegaysa hadba halka uu xaalka falastiiniyiinta marayo iyo waxay qorsheynayaan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa amiine keligeed oo u bundoonatay maqaaxi ku taalla xeeliga badda ee la yidhaahdo Dole Vita. maqaaxidan oo lagu leersado ayaa inta badan waxaa tegi jiray dadka ladan iyo mas-uuliyiinta. si kadisa waxaa maqaaxida usoo hor istaagay baabuur militari oo noociisa uu yahay jiib, waxaana ka soo degay 3 nin oo falastiiniyiin ah. 3da nin waxay si degdeg ah u muuqatay ay u abbaareen kursigii ay fadhida amiina oo markaa koob bun ah ama kafee ah loo keenay. mid ka mid a 3dii nin ayaa si dabacsan waxa uu yidhi, waynu garanay inaad halkan joogto, waxa aad ku amran tahay in aad haddana raacdo. naxdin ayaa xubnaheedii ay maamuli kari weyday, xitaa inay istaagto ayaa ay awoodi kari weyday, gaar ahaanna markii ay eegtay wejiyada ragga doonaya oo aad indhahooda moodayso inay ka soo baxayaan gantaalada wadnaha abbaaraya. halkaa ha inoo joogto qaybta afraad ee sheekada amiina almufti. waa inoo qaybta 5aad iyo kaabsoolkii sunta ahaa ee ay isku dayday inay cabto amiina almufti. qaybta xigta intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.